munaasabada Ciidul Fitriga ayaa maanta waxaa si weyn loogu oogay dhammaan xiriyaha qaxootiga Dhadhaab iyo guud ahaanba caalamka waxayna dadka inta badan wajiyadooda laga dheehanayay farxad iyo damaashada munaasabada Ciidul Fitriga qaar ka mid ah bulshada ka soo qayb gashay munaasabada Ciidul ayaa dareenkooda warbaahinta u soo bandhigeen hadaladoodina waxaa ka mid ah sidatan بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa Cabdirxiin Xuseen Muumin oo ku sugan xirada qaxootiga Dhagaxley maanta orantii maalin aad u farxad ah dhammaan caalamka oo laga ciiday oo muslimiinta Ilaahay uu iswaafajiyo maanta dhammaan caalamka laga ciiday sidoo kale maantana ah maalin jimcaha oo ciid kale ah waxaan la wadaagayaa dhammaan muslimiinta caalamka sugan فرحة عيدة ورنتي مانت مال أدنى وين أحضرنا ذات المسلمين وحن لها دمان مسلمين عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير تقبل الله صالح الأعمال رنتي مركان عيدي هري عيدنا سوبر بردنا وحنو أركا إن ما أنت اللي قدر يميو قرون كل قلت كان صلاة عيدة إن ضدك وأوسر يوسو عيدين أما يوسو تكدين تاس أسوي إن حرد قحتي رجع حركة الجزء زيادة حرد يفتو يصدق كلا إن ضدك عيد صفة عن جزء بحن عيدا runtii aad baa looga ciidan lahay xirada qaxootiga Dhagaxley dhamaan xiriyaha Dhadhaab aan ka warhayno ما شاء الله ما شاء الله حلو يدي فرحة له ورهان له dadka islaamka ee degan Dhagaxley si wanaagsan oo reheen وما شاء الله islaamka si farxo ayaa looga yidhi ayadoo la soo dhaafiyay rag iyo haween إلهي مقصد تحرد يوين سيار بناء كذا الصاع عمري سلوا فرحوا إسلامك وصوب الدعوة شيء وصوب النام بحي يد الفدري صلاة يدي مركا يد هري يد مركا وصوب فيريو ما دام الصوت عيو قحتك الصوت الصاري وحرد يفتوا الصوت الصاري عليه سم ما شاء الله وتي هر كده وسيك بدلن أيام لو يد مركا وحنا هاي ترك يد سوم هاي يردين معناها ما أنت يد وين ما تي وعن طنا السميرية وإلى حرق إلهي هيستان سيد وناك سنة مركورية التربية الروحية وناك سنايين وإلى وهذا صور هذا حتى الشوال بالقلها يا ومر اللحد بري بالقلها يا أنا وين لود يعني كروبة الإسلام كمرتا كركر إيدا مرتا السوق كركر مركا وحنا هاي مقدتي مغرب الإسلام كعالمية ميري جيران يد وناك سبان لا يد وناك سب يد وناك سب صار هذا كم يدلل كل حرة قحوتية Dhagaxley maanta waa maalin ciida dhammaan bulshada Soomaaliyeed aad u faraxsan yihiin ciidana waa la israacay oo maalmihii hore ciidii hore waa la kala ciidi jiray laakiin ciida maanta waa dhammaan magaalada xerada Dhagaxley aad baa loo ciidaa waana dadka dhanna way ciidayaan dhammaan waana damaashaadkana u socda وقال مجيء قطن كل مجيء وحال الله نمع عبدي وحن نكون ولا حدا قحوتي Dhagaxley ما شاء الله سوى نفسنا يا لوج عيد ما شاء الله عيدور والك عيد جري ساك رواج السي لكن عيدها نيتو كم لما كل عيد والس العيد هذا مان هل كم حنا كسلامة يا صاحبتي الجبل وهو صاحبتي قال لي حبس بشير لما صاحبتي أنا مقعد كلا قادين أنت ما قال كي مقال كي لما كسر سوى سلامة sidoo kale waxa meesha ka hadlay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Saris wakiil warad telefishinka Home Cable ayaa dareenkiisa warbaahinta u soo bandhigay sidoo maanta ugu faraxsan yahay damaashada munaasabada Ciidul Fitriga والمسألة أقولين بعض تيجي بدأ عصر كافي ويا أبو عبد السلام أحمد كان من بعض والبنت الصوماليين كنا ضل كينيا قارا حريق خطير راب حسن قاب كله ما هو قاب أدو قرب بدن ورسلت كل بعض وقاب كلا فلان جودان مشيدا مسلمين كنا قبل وقوي بريس قرب بدن وعيان وأركتا قراشنا مشيدا فرع بدن عرورتا هواك الموجودين كده مشيدا سوبر أكسن وعيدا runtii maanta waa maalin aad u weyn muslimiinta dunida gaar ahaan xiriyaha Dhadhaab waxaad arkaysaa in guud ahaan saddexda xiro si weyn looga ciidayo oo damaashadka maanta xiriirka dowladda sameeyay yahay mid baaxad weyn xasan marka laga tago bulshada Soomaaliyeed waxa si gaar ah ugu amraynayaa guud ahaan caalamka gaar ahaan baada warbaahinta Soomaaliyeed anigoo kala qaadin si guud waxa leeyahay mubaarak gaar ahaan baada TV-ga badda cas waxaan u amraynayaa kul caam maanta baqash sidoo kale waxa halkaas hadallo muhiim ah ka soo jeediyeen qaar ka mid ah culmaa diinka Soomaaliyeed ee ahlu sunna wal jamaac حسن أحمد مع العبدي ما أنت وحكنا عاي وواحد حتى ما ركتاي ريلا أيضا أضمودي سمعنا مال خلينا نتجين أيها كانت تكون مد ضدك وعاد فرحسن عيد دودي أو سوى فاي أو خلاف الحمد لله
أمني كلا ضمبين له نظام له ayaan alle ugu mahadinaynaa insha Allah taala inagu ku soo gabagabaysanay ciideni sidii aan rabnay sidii Ilaah nala jeclaa iyo ridii Ilaah inaan helno insha Allah taala ma rajaynaynaa intaasaan ku soo go'aan salaamu alaykum الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين magacayga waa Cabdullaahi Maxamed Yusuf oo ku magac dheer Cabdullaahi Madoobe alxamdulillah Ilaahay baa mahad iska leh ciidani waxay noogu dhamaatay si aad u qurux badan oo ninkii islaama iyo ninkii islaamka jaceelba ka farxinaysa islaamka ninkan maartay jacleena oo ka naxayo sidaas oo nabadgeliyo ay u weyn tahay sidaas oo cibaadadeeni kaamilka ahayd aan soo gudaynay khatinkeedina oo alxamdulillah rabbil caalamiin si mahad noogu dhamaaday allahana noo anfaco allahana naqaadsiyo inta ka dambaysana si aan ramadaankeeni u sagootino iyo ayaamaha khayrka leh maartay noo soo socdaalaha maartay noo kasbo marka intaas aan ku soo gowgeeno salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horeysay ee xarada qaxootiga Dhagaxley munaasabada Ciidul Fidriga lagu ciido balse ciidan ayaa ka dugan ciidii hore sida ay sheegeen bulshada ka soo qayb gashay munaasabada Xasan Cumar Xasan Kaafi telefishinka caalamiga ee Badda Cas 24 xariyaha qaxootiga Dhadhaab